Somaliland laga qabtay 13 November waxa uu tartamay 3 xisbi oo ka mid yahay xisbiga iyagu waxaan rajeynaa insha Allah ta'ala natiijada soo baxdo natiijada soo baxaysana dawli lagama hadal galabtaan ku bishka wada joogno wax laga wada hadlay codadkii iyo tirintii iyo tabashadii ka jirtay iyo madmadowiyada ku soo arooray ee la soo sheegay marka gudoomiyaha iyagu wuxuu ka hadlay doorashada iyo caafimaadkeeda ayuu ka hadlay musharaxa waxa weeye doorashada caafimaadkeeda ayuu duray oo ka hadlay oo wax ka tabay oo istiilaan wax ka tabanayna oo ku waafaqsana isagoo hadalkiisa si wato hogaamiye wuxuu tilmaamay in xisbiga mucaaradka wadani looga baqanaynin inuu nabadgelyada dalka waxyeelo isagoo fariintan diriyana Xirsi Cali Xaaji Xasan wuxuu yiri aan filayaa runtii taas waa wararka ku turkuteenka ee saxaafadu aadka u wado oo saaka waxaan arkay iyadoo gudoomiyana wada joogno baan arkay warar leeyahay gudoomiyihii waxa weeye wadani musharaxii wadani iyo musharaxiintii kale kulmiye cid waxay joogan commissionkay joogan oo waxay saxeexayaan natiijadii waana ogeydo cid isugu timi ma jirto natiijo la soo saarayna ma jirto marka wararka noocaas ah suuqa la wada u badan waxa weeye been abuurka iyo propaganda way dadka runtii aan u tuurayn Somaliland ama ha noqdo warbaahin ama ha noqdo shakhsi siyaasiya dadkan Somaliland u tuuraynin ay ka dhawaajinayaan laakiin saana waxaan leenahay doorashada iyo natiijadeedii doorashada waanu galay si xaragale oo qurux badan oo waxa weeye aanu guula ka soo hoynay guusheedii weyneed aanu sugayno guusha ugu weyn Somaliland baa iska lahayd in doorasho nabadgelyo ay dhacdo Somaliland baa guud ahaan iska lahayd in lagu kala guuleystana wax doorashada loo galo laakiin si taa lama gaadhin inaanu guuleysano iyo in cid kala guuleysato labadaba waxaan markii horeba filaynay laakiin si lama gaadhin taa marka natiijadu la keeno imika waxaanu ka hadlaynaa processkii iyo hanaankii ay u dhacday doorashadu laakiinse marka natiijo la gaadho commissionku iyaga loo eegmaday natiijo soo saaraan markaas aan ku hadli doonaa hadii Allah wada loo galaado ta nabadgelyada dalka nabadgelyada dalka ma aha wax anaga nologa baqayo dalka anaga cid walba uga la jecel badan dhismihiisa iyo horumarkiisa iyo ilaalintiisa cidna waxa weeye wadani looga baqi maayo hadda sidaad arkaysa gudoomiyuhu ugu yaraan 20 qof baa la xidhay oo wax markii doorashadu dhacaysay iyo dabadeed la xidhayba marka iyadoo dhibaatadaas u gaadhaysaba haddana reer wadani ay sugayaan oo ilaa hadda ay ka hadlayaan in waxa weeye sharciga la ilaaliyo nidaamka in waxa weeye aan lagu xadgudbin dadka laakiin si nologa baqi maayo anaga dalka nabadgelyadiisa anaga cid walba uga la jecel badan anaga ilaalinayna taageerayaashadan waxaan ku leenahay waa kala gaar doorashada iyo tabitaanka waxaynu ka tabayno ama ka tabanayno wixii qalooc iyo mugdi soo gala dalka iyo horumarkiisa iyo nabadgelyadiisu waa wax kala gaar taasuna waa wax gaar ah oo gaar looga hadlo oo waxa weeye cidii waxa weeye kharibaysay iyo wixii xumeynayaba meel looga soo wada jeesto midina waxa laga hadlayaa wax xuquuqdii dadkii noocday lahaayeen wax xuquuqdii doorashadaanu lahayn waa guusheedii aanu doonaynay deewanu daba joognaa waanu ka hadlaynaa waanu cadeysanaynaa waa raadinaynaa ilaa intaanu ku guuleysanayno ama aanu garwaaqsanayno inaanaan helin waa daba soconayna natiijada waa sugaynaayo haddii naloogu dhawaaqana waa sugaynaa waxaan lagu dhawaaqin dee lagama warramo lamana qaadaco lagama warramo marka dee natiijo miyaad maqashay natiijo lagu dhawaaqay weli mid soo gaadhay natiijadii anana waa sugaynay inaanu guuleysano haddiina laga guuleystana waa markeeda iyo waqtigeeda horena ballamaan loo qaaday waa markeeda iyo waqtigeeda laakiin se sheegan ilaa hadda ka hadalay waxa weeye hadalkii uu ku aroorayay waxa weeye doorashadii iyo hanaankay u qabsoontay iyo dhacdooyinkii dhibta lahaa ama sabab xadgudubyada ahaa ee ku soo arooray oo ay ka mid ahayd waxa weeye dad la xidhxidhay dhibaato la geystay wax istabamarin lagu tuhmay waraaqihii waxa weeye lagu codeynay banaanka laga helay tabashooyinka noocaasa ayuu ka hadlay musharaxu oo tilmaamay in yani ay doorashadii sidii ay u dhacday mugdi gelisay oo xalaalnimadeedii iyo hagaageedii waa wax dunida ka dhacay Mareykan doorashadu dambeysay Soomaaliya maqlaynin waa lagu shubtay dadana waxaanu aaminsanahay in jirto wax istabamarin badan iyo midmadow badan Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa